dumarka raaxadooda waxay ka bilaabataa dibadda jirkeeda dhan meelo badan ay ka dareentaa raaxada taataawashay u baahan tahay ilaahayna quraanka meel badan ku yiri awla mastum nisaa awla mastum lams mas marul taawashada ku sarbeeba la kulanka sababta wuxuu ogyahay taawashada dumarka soo qiimo kale yahay kadibna wuxuu ku tilmaamay raaxada ragga inay tahay straight forward direct toosan inay tahay tan dumarka inay tahay curve mid khalloocan marka saadaraad raaxada dumarka wuxuu ku leeyahay waxa ugu horeeya wajirkeeda soo kale waxa ugu sareeya cadka yar ee sare ee lagu magacaabo kintirka Soomaaliku magacaawno cadkaas waa meesha ugu badan ay si fiican ugu raaxaysanayso haday wax ay xoqaan markay alaabta haweenata ameysan weynaha haday cadkaas lagu xoqo inay raaxo dareemayso waxa ku xiga yiraahdeen bishimaha yaryar bishimaha yarna waxa ku sii xiga bishimaha waaweyn oo fuqahadana oran jireen waliba bishimahaas waaweyn hadii qabta laga dhaawaco waxa loogu magacaabo cafala imaam Shaafici kitaabkiisa wuxuu ku sheegay in diya loogu baahan yahay qofkii ka dhaawacay isoo kale waxa Ibn Jurayj soo wariyay Umar Abdul Aziz majliskiisa in culimada jimaac ku gaareen qaftii hoosta buru bishimaha sar kaliya laga dhaawaco in diyadeeda la bixinayo sababtoo ama raaxaysanaysa qafti waana raaxada tii ugu dambeysay yaani marka waxa soo dhan waa dibadii kintarkii waa dibadii bishimaha yara waa dibadii bishimaha saran waa weyn waa dibadii gudaha meesha ay xogaa raaxa ka dareemayso waa dhabxaniga sare ee ku beegan kintarkii curve weeyaan laakiin gudaha badankiis dareen ma laha sababta ilaahayna ugu talagalay waxay tahay gudaha haduu dareemo badan lahaan laha qabta xanuunka fooshay la dhiman lahayd ilaan meesha soo maray cunugi dareemo badan ilaah uma yeelin sababta wuxuu ogyahay meesha inay balaaranayso cunug ka soo bixi doono dumarka raaxadooda waxay ka bilaabataa dibadda jirkeeda dhan meelo badan ay ka dareentaa raaxada taataawashay u baahan tahay ilaahayna quraanka meel badan ku yiri awla mastum nisaa awla mastum lams mas marul taawashada ku sarbeeba la kulanka sababta wuxuu ogyahay taawashada dumarka soo qiimo kale yahay kadibna wuxuu ku tilmaamay raaxada ragga inay tahay straight forward direct toosan inay tahay tan dumarka inay tahay curve mid khalloocan marka saadaraad raaxada dumarka wuxuu ku leeyahay waxa ugu horeeya wajirkeeda soo kale waxa ugu sareeya cadka yar ee sare ee lagu magacaabo kintirka Soomaaliku magacaawno cadkaas waa meesha ugu badan ay si fiican ugu raaxaysanayso haday wax ay xoqaan markay alaabta haweenata ameysan weynaha haday cadkaas lagu xoqo inay raaxo dareemayso waxa ku xiga yiraahdeen bishimaha yaryar bishimaha yarna waxa ku sii xiga bishimaha waaweyn oo fuqahadana oran jireen waliba bishimahaas waaweyn hadii qabta laga dhaawaco waxa loogu magacaabo cafala imaam Shaafici kitaabkiisa wuxuu ku sheegay in diya loogu baahan yahay qofkii ka dhaawacay isoo kale waxa Ibn Jurayj soo wariyay Umar Abdul Aziz majliskiisa in culimada jimaac ku gaareen qaftii hoosta buru bishimaha sar kaliya laga dhaawaco in diyadeeda la bixinayo sababtoo ama raaxaysanaysa qafti waana raaxada tii ugu dambeysay yaani marka waxa soo dhan waa dibadii kintarkii waa dibadii bishimaha yara waa dibadii bishimaha saran waa weyn waa dibadii gudaha meesha ay xogaa raaxa ka dareemayso waa dhabxaniga sare ee ku beegan kintarkii curve weeyaan laakiin gudaha badankiis dareen ma laha sababta ilaahayna ugu talagalay waxay tahay gudaha haduu dareemo badan lahaan laha qabta xanuunka fooshay la dhiman lahayd ilaan meesha soo maray cunugi dareemo badan ilaah uma yeelin sababta wuxuu ogyahay meesha inay balaaranayso cunug ka soo bixi doono